daawadayaal kulanti wanaagsan si kasta iyo meel kasta naga maqlasaan halkani waa warbaahinta horfadhi media warbaahinta ugu ballaaran ee wararka diblomaasiyadda iyo wararka caalamka ee Soomaaliyeed aad mar walba kala socotaan barnaamijkan tooska ah daawashana kuma waxaynu ku qaada dhiganaa isla markaana ku fiirana xaaladda dalka Ukraine oo uu dagaal ku bilowday saaka la sidii hore waqtiga dalkaasi toddobadii subaxnimo markay ahayd waqtiga maxalliga ee dalkaasi ayaa dagaal culus oo saddex garjaha wuxuu kaga soo bilowday dalkaasi dhinacooda bari ama dhinaca iyaga bari ka xigta ee dalkaasi kadib markii ciidamada dalkaasi ay go'aansadeen inay galaan oo ay weerar aad u culus ay ku qaadaan dalka Ukraine gaar ahaan ciidamada dalka Russia madaxweynaha dalkaasi Russia Vladimir Putin ayaa goorsii horeysay wuxuu amar ku bixiyay in ay ciidamada dalku amar ku haystaan in ay duqeeyaan isla markaana ay goobo cayman oo dalkaasi ah ay burburiyaan waxaa amarka lagu siiyay ciidamada in ay goobaha militariga ay aafeeyaan isla markaana ay ciidamada ay naafeeyaan isla markaana ciidamada dalkaasi ay wiiqaan tabartooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin haddaba wararka imaanaya sida tooska uga imaanaya waxay muujinayaan in magaalada caasimadda Kiev iyo magaalooyin kale oo dalka ah ay ciidamada dalkaasi ay duqeyn xoogan u geysteen wararka qaarkood haatan waxay sheegayaan in ciidamada dalka Russia ay durba ay ka degeen ama ay gudaha u galeen magaalada Odessa iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay duqeyn xoogan ay geysteen hase yeeshee madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin oo hadda hadlayay waa hal daqiiqo ka hor hadeer aan hadlayno waxa uu sheegay inaysan qorshahooda ugu jirin inaysan haba yaraatee aysan xoog ku gelin oo aysan qabsan dalkaasi aysan qabsan soo hadalka u dhigay laakiin wuxuu sheegay in ay yoolkooda iyo go'aankooda uu yahay in ay khatarta ka fogeeyaan iyo halista uga imaanaysa dalkooda uga soo jijiile dhinacaas dhanka kale madaxweynaha dalkaasi Russia wuxuu sheegay in ciidamadiisu ama miirta kale ay haystaan ay tahay inay goobaha rayidku ku badan yahay ay yareeyaan oo khatarta iyo waliba dhimashada iyo dhaawaca ku imaan kara ay mar walba koobaan oo ay cayimaan wuxuu ugu yeeray khatar kasta oo ka imaan karta dunida oo dhan ayaa runtii aflabadii yeedhay haddeer daqiiqadan aan hadlayno hawada ku jirno waxaa toos u wada hadlaya madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo soo jeeda waqtigan oo ay tahay saqbad dambe xilliga Mareykanka iyo waliba madaxweynaha dalkaasi lagu hareereysan yahay Zelensky madaxweyne Zelensky ayaa isaguna wuxuu ka akhriyay TV-ga qaranka khudbad wadna taabada wuxuuna shacabka waddankiisa u sheegay in ay joogaan waqtigii ay muuji lahaayeen inay muwaadiniin yihiin isla markaana ay waddankooda difaaci lahaayeen sidoo kalena waxa uu sheegay in ay dadka aan dagaalamayn oo dhan ay ku jiraan goobaha gaar ahaan dadka magaalooyinka jooga goobaha xabadda looga gamba karo iyo gantaalaha aadka u culus sidoo kale waxa ay markaasi codadka digniinta iyo qaylada bixiya ee sirenka loo yaqaano ay ka babanayaan ama ka dhacayaan magaalooyinka dalka oo dhan isla markaana waxaa loo sheegay in dadka inta aan huqaadka ahayn iyagu doonayeen inay dagaalka ku biiraan inay ku sugnaadaan goobahooda xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo isagu hadda hadlaya ayaa waxa uu sheegay in ay joojiyo Mr Putin dagaalka isla markaana dagaalku daba dheeraa karo meel xun ku dameeyo karo golaha ammaanka qaramada midoobay looma kala kicin shirkiisa wuxuuna ogyahay mid ku taag ayadoo dhinacyadu ay qolada kale ay ku eedeynayso inay dhibaatada iyo dagaalka ay wado safiirka dalka Ukraine u fadhiya golaha ammaanka qaramada midoobay oo isagu hadda hadlay ayaa waxa uu sheegay in golaha uu ka saaran yahay mas'uuliyad ay ka saaran tahay inay dagaalka joojiyaan wuxuuna u sheegay inay muhiim tahay inay dalalku ay dhageystaan wuxuu ugu yeeray Sergey Kistisia wuxuu ugu yeeray inay xabadda la joojiyo in golaha ammaanka qaramada midoobay iyagoo goorsii horeysay ay dunida u sheegeen in ay arrintaasi sameeyaan hay'adda dhinaca maamulka hawada rayidka ee dalka reer Europe ee European Aviation Regulatories-ka loo yaqaan ama civil aviation-ka waxay ugu baaqday diyaaradaha oo dhan inay ka fogaadaan hawada dalka Ukraine oo ceeriyaamo noqotay kadib markii diyaaradaha dalka Russia ay galabaxayaan isla markaana ay duqeyn ka wadaan hawada dalkaasi sidoo kale gantaalaha culus ee dalkaasi ku hoobanaya waxay ka soo dhacayaan badda madow sawaariikh aad u xoogan ayaana dalkaasi kaga socota goobo kala duwan gabadha qaramada midoobay u fadhida dalka Mareykanka Linda Thomas Greenfield oo iyaduna mar dhaweeyay golaha ka hadashay waxay ku tilmaantay dagaalkaasi inuu iska yahay karta cad iyo duulaan waliba dalkaasi loola camdiyay oo ay ku tilmaantay inay noqon karto dambiyo dagaal oo la galo iyo sidoo kale xasuuq halkaasi ka dhalan kara 44 milyan dal ay ku dhaqan yihiin ayay ka digtay in dagaal lagu qaadaa aysan ahayn oo kaliya dambi laga galay dadkaasi laakiin aadanaha oo dhan lagu ciyaarayo isla markaana khatarta ammaanka oo dhan la geliyay magaalooyinka dalkaasi oo dhan ayaa hub culus ku soo dhaceen isla markaana duqeyn ay dawladda dalka Russia ku wada marka laga soo bilaabo magaalada caasimadda Kiev magaalada Kharkiv magaalada Kramatorsk magaalada Dnipro magaalada Mariupol magaalada Odessa magaalooyinka kale ka mid tahay Zaporizhzhia iyo magaalooyin kale oo Tiraspol ayay wararku sheegayaan madaxa amniga qaranka ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu sheegay in ay noqon doonto xaaladda mid uu ku tilmaamay
mid xumaa karta goor kastaba maadaama dalkiisa oo laga gardaran yahay isla markaana waxay sheegeen inaysan dalkooda ahayn dal isdhiibi doono wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Russia dalka Ukraine aan dhaho oo hadda ka hadlayay duulaanka Russia ayaa wuxuu leeyahay Ruushku waxa ay isku dayayaan inay handadaan daldan isla markaana ay cagajugleen iyo beenbeen ku qabsadaan balse wuxuu ka digay in ilaa rasaasta ugu dambaysa ay markaasi ay dagaalami doonaan duqa magaalada caasimadda Kiev wuxuu uga digay muwaadiniinta dalkiisa in ay sidoo kale ayaguna ay salbabaqaan oo dadku ay khatar dareemaan isla markaana wuxuu uga digay dadka inay la joogin waqtiga la cabsan lahaa laakiin la joogo waqtiga laga dagaalami lahaa sidoo kale duqa magaalada Dnipro waxa uu isaguna muwaadiniinta dalkiisa u sheegay ninka leeyahay Boris Fiatov in ay sida ugu rasaha badan ay dadku isku abaabulaan oo qof kasta oo doonaya inuu dagaalamo uu diyaar garoobo marka ciidamada dalkaasi ay bilaabaan in dhinaca lugta ay ku soo galaan dalka in dhigta dhiga loo daro isla markaana laga qayb qaato xoreynta dalka si baxsanna loo handado ayuu yiri isla markaana wuxuu uga digay dadka laakiin muwaadiniinta dalka ayaa diiday badankood inay barakacaan ilaa haddeertana ma jiraan cid barakacday waxayna u muuqataa in duqeyntu ay sii xoogsanayso madaxweynaha dalkaasi Ukraine runtii marka aan sawirkiisa aragnay iyo muuqaalka haddeerta uu jeedayo waxa ka muuqda markaasi cara aad u xoogan xataa wuxuu u labisnay sidii caanka lagu yaqaanay inuu tay uusan xidhnayn waxaana uu sitaa markaasi dhar ninkan horta wuxuu horey u ahaa jiray nin dadka ka qosdiya majaajilayste ayuu ahaa jiray isla markaana malaha khibrad dhinaca maamulka sidoo kalena malaha khibrad ballaaran oo dhinaca marka dawliga ah laakiinse waa nin dadku aad u jeclaayeen majaajilooyinka iyo qosolka waxa lagu yaqaanay laakiin haddeer maanta wadanka waxa ka taagan arrin qosol maaha waa arrin aad iyo aad u halis badan laakiinse wuxuu ugu yeeray muwaadiniinta dalkaasi in ay runtii ay maqlaan farhiintiisa wuxuu ku bilaabay muwaadiniinteena qiimaha badan ee dalkan subaxnimada saaka Putin wuxuu go'aansaday in uu howlgal military oo khaas ah uu ka fuliyo Donbass sidoo kalena uu weerar dhinaca cirka ah uu ku soo qaado kaabayaasheena dhaqaalaha xuduudeena iyo sidoo kale goobaheena muhiimka ah oo ay ku jiraan magaalooyinkeena waaweyn ayuu yiri waxaan rabaa ayuu yiri inaan idin sheego in wadanka oo dhan aan xayirnay sidaas daraadeed waxaan rabaa ayuu yiri in aan idin sheego sidoo kale inaan la hadlay madaxweynaha dalka Mareykanka oo isaguna ay ballan qaaday buuri inuu taageero lixaadle isla garab taagi doono dalalka ay ka mid tahay UK ayaa gordhow ku dhawaaqay inay shixnad military oo degdeg halkaas u diri doonaan laakiin se ilaa haddeerta ma aysan muujin wax raad ah ama wax haba yaraatee calaamada oo ay doonayaan inay dalkaasi ku caawiyaan oo dagaalka ay kala qayb galaan ama ay qayb ka noqdaan duulaanka iyo waliba weerarka iyo celiska halkaas ka soconaya laakiin ra'iisul dalka Britain Boris Johnson waxa uu sheegay in muhiimadda ugu weyn ay siirayaan in aysan saanada military iyo sidoo kale taageerada dhinaca niyadda iyo qalbiga aysan ka kala go'ayn dalkaasi golaha maanka isagana runtii daqadaqad buu soo dhacaya dalalka 15 golaha maanka ku jiraana dal walba codkiisa si gaar ah ayuu u dhiibanayaa waxaana u muuqataa in aysan hoo yaraatay rajo aan laga qabin in golahu ka ansixiyo qaraar lagu joojinayo dagaalka waayo dalka Ruushka oo codka diidmada qanyaxan leh ma ogola in haba yaraatee arrintaas laga hadlo waxaana uu goortii horeysay uu difaacay safiirkooda halkaasi Faisal Napansia ninka la yiraahdo go'aanka uu madaxweyne Putin uu ku gaaray in weerarka uu ku geysto ama uu ku galo dalkaasi Ukraine wuxuu ku tilmaamay inay tani tahay wuxuu ugu yeeray muhiimad gaar ah oo khatarta laga hortagayo dalkiisa ka hor intiisan gudaha u soo galin oo iyaga aan markaasi dhexdooda lagu dagaalamin wuxuu ka digay inay caradan oo dhan ay keenayso dalalka reer galbeedka oo go'aansaday mar walba inay dhuunta ka soo galaan dalka iyo sidoo kale waxyaalaha kale ee keeni kara ay ka mid tahay ayuu yiri arkiwaaga wuxuu ku sifeeyay dalkiisa la arki waayay mararka qaarkood dhan kale safiirka dalka Shiinaha u fadhiya golaha maanka qaramada midoobay Ambassador Shan Chun ayaa waxa uu dhankiisa uu sheegay in xaaladaasi ay u baahan tahay in la qaboojiyo isagoo sheegay in caqli guud si weyn loo isticmaalo hase yeeshee Ruushku ma usan cambaareen haba yaraatee dagaalka halkaasi halka dalalka reer galbeedku ay safaf dhaadheer usoo galeen inay cambaarayaan dalka Ruushka Shiinuhu laakiinse waxa uu eegayay inuu la jiro markaasi mabda ahaan uu badan yahay dhinaca dalka la yiraahdo Russia gashanburta NATO xogeeyada guud Nicola Jens Stoltenberg waxa uu ku tilmaamay in xaaladda halkaasi ka soconaysa ay iska tahay wax muujinaya in la jabiyay sharciga caalamiga international law-ga loo yaqaano iyo sidoo kale wuxuu yiri axadiga kale ee dalalka gashanburta NATO ku jira ee ilaalinta dalalka madaxa bannaan iyo inaan dalalkaasi lagu qaadin handadaad iyo sidoo kale inaan dhibaatooyin xooggan loo geysan wuxuuna ka digay in arrintaasi ay tahay mid la yaab leh dhanka kale madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo isaguna ka mid ah dadka dagaalka ka hadlay ayaa ku tilmaamay inay tahay arrin aad iyo aad u xun isagoo daqiiqada ka hor la hadlayay Fox News TV-ga inta badan dhinaca conservative-ka midigta u janjeera ayuu u sheegay
in waxa ay arkaan ay tahay wax aad u xun iyo cabsi gelin ayuu yiri isagoo sheegay in uu maalin ka horna wuxuu ku tilmaamay madaxweynaha dalkaasi ruushka inuu yahay nin fariid oo genius ayuu ku tilmaamay oo tahay waa nin aad u caqlilow ah balse waxa uu soo kale weerar afka ku qaaday madaxweynaha Mareykanka Mr Biden ninkii isaga jagada ka halabsaday wuxuuna ku tilmaamay in uu isagu yahay ninka dayacay arrimahan oo dhan oo diblomaasiyad ahaan ku fashilmay inuu arrinta xakameeyo Ukraine waxay kaloo sheegtay hadeerto in ay gorsii horeysay ay dalabtay in gebi ahaanba dalka loo furo muwaadiniintiisa kaydka hubka waxaana ay baarlamaanku si degdeg ah u ansixiyeen isla qaraarkaasi baarlamaanku waxay ogolaadeen in qof kasta oo muwaadin oo doonaya inuu dalka daafaco la siiyo qori iyo bosh sida ay sheegayaan markaasi waaxda dhinaca indhaynta dhanka kale waxa ay dowladaha dalalka reer galbeedku hadeerto ay ka hadlayaan in ay joojiyaan ama ay xidhaan waxa loo yaqaan swift code-ka waxa waaye in dalkaasi laga xidho lacagta habka caalamiga ee lacagta la isugu xawilo oo nidaamka lacag xawilista oo dalkaas gebi ahaanba laga xayiro ayay dalbadeen waxaa goor sii horeysay la xayiray barnaamijkii loo yaqaanay Nord Stream 2 ama barnaamijka tuumbada labaad ee shidaalka gaaska dabiiciga ka soo qaada dalka Ruushka badda madow soo marta ilaa iyo badda markaas Mediterranean iyo Atlantic ka talaabta ee loo geeyo dalalka reer galbeedka ka mid ah Jarmalka wuu joojiyay arrintaasi Mareykanka cunaqabatay rasmi ayuu saaray isla markaana waxay ku tilmaamaysaa arrintaasi noqon doonin dhanka kale dowladda dalka Ukraine waxay kaloo dalbatay in si degdeg ah looga wada hadlo ayaa la yiri mustaqbalka dalalka Yurub ay ku tilmaameen inuu hadeerto uu khatar gelinayo madaxweynaha dalka Russia hadaba dabashan qiimaha leh intaynan halkaas warada ka aragtaan waxa weeye magaaladii caasimadda ahayd oo runtii uuro iyo qiiq uu ka kacayo dalka Ukraine waxaa markaas weydiin mudan dalalkan cunaqabatayn hadday saaraan dalka Ruushka waa maxay xigi kara intee bay socon kartaa mase laga yaabaa hadhowto in Ruushka dhaqaale ahaan uu arrintan ku burburo waa laga yaabaa Ruushka inuu si ku meel gaar dhaqaale ahaan ugu burburo laakiin marka si aan u eegno qoto dheer uma maleynayo inay in badan ku sii hay karaan cunaqabataynta gaar ahaan tan Swift code-ka oo kale oo ah in barnaamijka Swift code-ku waxa weeye qaabkan lacagta la isugu xawilo waxyaalahan bankinka loo isticmaalo ay bangiyada lacagta isugu xawilaan iyo qaababka lacagta loo kala qaato oo waxaad ogtihiin in waxaan wiring-ka iyo lacagahaas ay ku yimaadaan habkaas ay ku yimaadaan oo inta badan ay tahay laakiin marka aynu fiirino sida adduunku iyo haddaan dagaalku uusan ballaaran oo runtii aan deliskuba rogman oo aysan dalal kale soo gelin taasoo rajo aad u yar boqolkiiba hal wax ka yar laga qabo haddana hadday noqoto dalka Ruushka in lagu sahayo cunaqabatayno waaweyn oo ah gaabuntir dad badan waxay qabaan inaysan soconayn sababta ugu weyn waxa weeye Ruushku waa laba arrimood labadaba marka horeysa cunaqabataynadu waxay noqonayaan fardi oo wadamo ayagu waliba reer galbeedka isku xiran oo ayagu dal u saara cunaqabatayn way jirayaan balse inkastay dowladamadeed xoog leeyihiin oo iyaguna waxa loo yaqaan dhaqaalaha adduunkan ayagu ay maamulaan ama nidaamkan bankinka iyo hababkan kale laakiinse ma jirto qaraar laga soo ansixi karo wadankii isaga ku jira golaha ammaanka qaramada midoobay taas waa taas oo wadamada oo dhan isma raaci karaan ta kale la yaab kale waxa weeye Ruushku wadan hubka nuclear-ka ayuu haystaa sidoo kale teknolojiyadda ayuu sameeyaa karaa waan wadan aad u awood weyn wuxuu sameyn karaa wadamada inuu adduunka fasahaadiyo ayuu hadhowta ku gorgortami karaa oo dhihi karo adduunka oo dhan baan hubka nuclear-ka ka gadanaa wadan alaale wadankii doonaya inaan hub nuclear ka gadno ayaan ka gadanaa inuu dhaho dee intaasoo wadan oo hub nuclear doonayana wadan kasta cunaqabatayn lama saari karo kolka waxay noqonaysaa waxyaalaha uu ku hanjabay ka mid tahay ee uu odhan karo wadamada hadduu doono caalam islaami ama wadamo kale ama kuwo kale oo laga sii baqayo ama kuuriyada waqooyi ama Iran oo kale ayuu wuxuu dhihi karaa waxaan siinayaa hubka nuclear-ka ah oo aan gaarsiinayaa oo aan u geenaya marka dad badan waxay qabaan inay ku meel gaar noqon doonto cunaqabatayntan tii 2014 markuu gacanka Crimea uu qabsaday oo kale ay noqon doonto waagaasna way xadidneed hadeertana saas oo kale ay noqon doontaa hadeerto aqalka cad ee madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa war qoraal uu soo saaray waxa lagu yiri dawladda dalka Mareykanku waxa ay mar walba cambaareenaysaa dambiyada laga gelayo dalkaasi iyo sidoo kale weerarkan qaawan ee lagu soo qaaday ayaa lagu yiri sidoo kale waxa la sheegay in hadeerto qolka amniga qaranka dalka Mareykanka looga xaajoodo ama xaajooyinka adag ee adduunka iyo loo yaqaan situation roomka inuu ka soconayo kulan iyadoo ay tahay sabab dhexe oo dalka Mareykanka oo ay runtii tahay waa soo dhawaad waxaana sheegayaan khubaradu in ay u muuqato waxyaalaha ka imaanaya oo dhan inay tahay arrintaasi mid muujinaysa in halis weyn soo jijileeday sidoo kale wuxuu Biden sheegay inuu si degdeg ah ula kulmi doono dalalka G7 oo shir maqal iyo muuqaal oo degdeg ah uu la yeelan doono si markaasi loo tuso ayaa la yiri awoodooda dhinaca dhaqaale dalkaasi Russia dabasha qiimaha leh isku soo duubno wararka dalka Russia runtii waa ka imaanaya
waxa weeye ayagu inay leeyihiin anaga howlgalkan waxa weeye howlgal aan ku difaacano qarnimadanada oo ay waxay leeyihiin waxaan ku difaacanaa in dalka iyaga hoosta laga soo galo oo wadamadan gaashaanbuurta NATO ay hub nuclear ay keenaan badda madow sidoo kale ay bandhig military ku qabtaan ama sidoo kale ay dalalka qaarkood ay ka aqbalaan inay ku daraan gaashaanbuurta NATO dalka Ukraine gaashaanbuurta NATO kuma jiro laakiinse uu dalbaday dalalka dalbaday ayuu kamid yahay inuu kamid noqdo waase laga warwareejinayay shuruudihii ugu badnaa uu burburayna waxaa kamid ahaa in ay gaashaanbuurta NATO joojiso dalabka ah ama in la saxeexo inaan Ukraine kuba biiri karin golahaasi sidoo kale wadamo badan oo Balkaniska wadamadan loo yaqaan gobolkan ku yaala tirsan oo markii hore asal ahaan ka soo go'ay midowgii Soviet inay iyaguna ay noqdaan waxaan kaloo dabashan qiimaha haddeerto wararku ay sheegayaan in ay ciidamada dalka Ruushka ay bilaabeen inay ka soo galaan dhinacaasi Belarus dalka Ukraine warar ay ka imaanay warbaahinta caalamka iyo sidoo kale dad warwareynta hay'adaha sirdoonka qaramada dalalka reer galbeedka waxay sheegayaan in baabuur trapel ah oo ayagu kuwa gaashaamana ay dhinaca ku soo dhaqaaqeen waxaad moodaa arinta hadda ugu yaabka badan waxa weeye ciidamadii dalka Ukraine qaabka ay u dagaalamayaan ilaa hadda aad looma fahansana oo runtii waxa weeye duqeynta waa la gartay oo nidaamkan dhinaca duqeynta dalka si xooggan buu u burbursan yahay oo runtii burbur xoogan loogu geystay andhaho duqeynta xagga cirka laakiin ciidamadana soo siqaya gaar ahaan magaalada Odessa oo kale iyo magaalooyin kale oo ay ka mid tahay deegaanka loo yaqaano Sinkivka iyo sidoo kale magaalo kale oo leedahay Fisalovka oo Belarus dhinaceeda xigta waxay sheegayaan in ciidamadaas ay ka soo galeen oo deegaanaas ay ka soo galeen laakiin madaxweyne Putin wuxuu ku adkaysanaya in ciidamadiisu ay qabsadayaal ahayn laakiinse waxay bedelayaan dawladda sida muuqata dadku waxay ku qanacsan yihiin dawladda inay dumi doonto dalkaas Ukraine laakiin madaxweynaha dalka Ukraine wuxuu leeyahay dalka kama carari doono mana tagi doono ayuu leeyahay lama sagara doono si xaajadu noqon doonto marka waa isku soo laabanana hadii ilaahay idmo qaybtan dabashana qiimaha leh intaasan ku joojinanaa hadii ilaahay idmo kadibna waxaan eegi doonaa wararka mar daqiiqad kasta wararku way soo dhacayaan xaaladuna way sii darsanaysaa wayna sii adkaanaysaa runtii oo dabcan ishayna ku haynaa wararka iyo muuqaalada halkaasi ka imaanaya waxaan u eegin dhamaantood koo muujinaya in dalkaasi uu dagaal rasmi lala galay oo dagaal rasmi lagu qaaday marka si weyn loo eegana waxaa hadeerto hadal ku jira ammaanka adduunka oo dhan oo xasaradaasi waxay noqon kartaa mid aan la garan karin meesha ku dhamaato dadka qaarkood waxay ka baqayaan dagaalku uu si kale u fido tusaale ahaan dadka qaarkood waxay ka baqayaan inay meesha ka dhacaan weerar gaadma ah oo kale amase wax loo yaqaano kale mu'aamarado waaweyn ciidamada Mareykanka waxay joogaan Poland oo haddii iyagoo kale weerar lagu qaado kale oo la sameeyo karo dalalka faa'iideysan kara arrintaas ay jirayaan oo dagaalka si fudud u geli karaan arrintaasuna way fool xumaa kartaa ma sii rajeynayno in dagaal adduunka uu ku sii xumaado ama dhibaatooyin waaweyn ay dhacaan waa eegi doonaa wixii soo kordha waxaase muuqataa in dalka Ukraine maanta uu baas u bariyay